بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan hambalyeynaya oo noo ducaynaynaa dhammaan ardayda qalin jabinaysa ee tiradoodu kor u dhaaftay 500 waxaynu bogaadinaynaa waalidkii ku soo tabcay waxaynu bogaadinaynaa jaamacadda iyo macallimiintoodii u howlgalay inay ardayda wax baraan waxaynu bogaadinaynaa gobolka iyo degmada Gabiley oo sida la sheegay ama waajib ku ahaa gutay waajibkoodii iyo in ka badanba oo dhinac walba ka taakuleeyay waxaa farxad u ah qaranka inay ku soo kordheen maanta 500 iyo dheeraad dhalinyaro ah oo aqoon kala duwan leh oo aqoomaha mid waliba halkiisa ka anfici doonto aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa waanu idinku faanaynaa horumar soo socda dalka weeyi إن شاء الله وحنقود أنت قار دلكود يددكود وأنفعه أو هوش قرنك يتقويسك يتنفتني وحكتره إلى هاي الهلكات كاروني هذا كذب وحكلوا سودو وين يا ماتا مرتي عروس وهالكم فرده وكم أتيا بروفيسور أحمد سمعان سواتر قبلي هدو بسودو ويا وقرا هاي حدنتي سبات الله لكن قولا أكلا أو يسود ويا أهيد بان هذا دي أكلات دي هل كان جامعة مركز لقاها ضايو وحفلة دعوة وحفلة اللي فرحة سياسة وين الله قدرين أنا عشت لو تدوا وأنا قدر ولا يجمعوا أيوة حريق فقراشة واحدة باكو سوق القاضي أنا واحد كذا دنت جودة ذلك سياسة كهذا بايو دنت جودة ذلك بعض ذلك إلهي مهدي نبض بكتيرة إن بدنا وين روبان تاي روب كمو وذا جارين لكن الحمد لله إلى ما هذا أبارتي ونجت شبيه واتشران قبل الله أنا وركوتيه روبكو أنت وحوجه وده أي هذي اللي أجت شقرا فيها وبقول كي بالله واسن ذلك بقول كي إلا صدن أفرت النوى تل روبان تيسا يبقى كداي بقول كي أفرتنا أبارتي أولك تاجر إلهي واحد وكرتيرنا إنه أبارتها إنك سوتشي بيو مدنا عالم كانوا لقبنا هذا أدون كوساكا بصوحا ساكا وصاوي كل عقلها كوهب لها كل ير لها كل مراكب سبيسود درست لها كل بترول لها كل لها وحاو ما هيو أدون كوساكا نقول يا ركيسة أيوه ساوي كيا على عضو ونطيران شدال كيو قسمي واحد بدا إنه أدوك مانتا بسنك الله يدا مانتيبا وتباليسيه إلهي مهدي وحا إنه ضد سكو كالصون oo iskaashada oo sanado badan oo dhibaato ka soo baxay oo isjiita oo wada ehela ayaynu nahay sidoo adduunka kale oo saameysana inoo saameyn ilaahay waxaan ka rajeynayaa dhibaatooyinkaana inuu naga nabad geliyo waxa kale oo ku talanayaa inuu dhibaatooyinkaana ku tala galo oo haddaynu fadhiyi jiray oo makhaayada ka sheekeynay oo marna qayri jiray maanta waqtiga fadhiga iyo amal la'aantu waa inaynu aad iyo aad u yareynaa waliba ragga hablo waa hawl qabtaan intooda way qabtaan waliba ragga la hadlaya waxa weey tacabkaaga waxa ugu yar gurigaaga aad degantahay wadadiisa dhibaatada taalo wax ka qabato waxa ugu yar inaad beertaada ama xoolahaaga maalinta baahida jirta wax ka qabato oo xaqiiqo ah raggu inuu hawsha in badan dayaco marka buurtu waa quruux iyo dhagaxaan roo isu tago buuru weyn noqota marka haddaad maalintii qoyskaaga hawshooda wax ka qabato ka jaarkaad ku dari ka magaaladaad ku dari ka qarankaad gaari doontaa marka inaan maskaxdeena hawsha u bedelo waa soo jeedinaya ragga da' walba uu yahay dalkeena maanta waxa ka jirta sanadkii doorashooyinku soo galay buuq iyo bulaan iyo qayl badan ba ka jirta horta shacabka waxaan u sheegayaa mar walba u sheegaa dadka siyaasadda ku jira ereyga waa la shaabaday wax balaayo loo qaatay waa dad taladii dalka guud u haya qof walba iyo qoys walba ka soo toosteen waxaan ogahay qoys waliba dhexdiisa saaka inuu intaas canaanay qofba qof aan hawsha qaba waa arrin qoys
inay to gobolkuna intaa in leeg iyo ka badan tahay ta qoyska ama beeshuna suldaanka caaqilka dhibta haysta waa ogtihi intaa waa la isyaraabaya hawl baa jirta waa la murmaya bal ka warrama qaranka oo dhan dacal ilaa dacal oo la doonayo taladiisa in la midayo marka haddii ay xisbi yihiin hadduu baarlamaan yahay hadday qolada miidiya tahay waxaa soo bulaan waa talo dalka hala wanaajiyo ayuun baa lagu murmaya qofba si way ugu muuqataa waxaa la yidhahdaa allana la kala beriyo og ereygana la kala og way jiraan dad aftahama ah oo hadalka oranog oo iyagoo doonaya kaadiyadiisa ku marin kara sida rag badan oo halkan fadhiya qoraal ka soo jeeda gaboose iyo axmed sucaal samatan iyo qolo sayda iska xampulo oo yara agnaaruhu markii haddaan cara ku hadlo madayaha uuna aniyo rag kale halkaa ka soo jeedaba raggaasina waa jiraa iyo dumarkaasiba marka waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ka qalloocato marka ay ka hadlayaan fagaaraha oo ereyo qalqallabsan soo tuura oo dadka cadho gelisa taasi waxay ku xiran tahay maaha niyadda iyo in la col la yahay qofba siduu fagaaraha uga hadla dee ilahay ba dadka u kala abuuray maxaa maanta buuqa jiraa waxa weeye xisbiyada mucaaridka ah oo aad iyo aad kama cabanayaan qof kale xataa xisbiga kulmiye eedda amado saarayaan kaasi waa qodob qodobka maanta ay aad uga damqanayaan erey kastaba ha la yidhaahdee waxa weeye ururada yaan la furin haddii la furana yaanay tartanka madaxweynaha ka qayb gelin waxaan doonayaa keliya inaan idhahdo haddii aanu cid siyaasadda iskaga soo horjeedo haddii cidun aan ka baqan lahaa oo lahaa kuwaas yaanay tartankaa kula soo gelin horta gaboosyaal ismaaciil samatar baan iska fogeyn lahaa labadaa oo ma soo dhaweysteen khatar cadiim dadka qaar baa u haysta inaan cid ku soo dhaweynayo arrintaa ma aha labadaasaa haddaan ciddiida inay tartan la soo galaan deedma waa iska qaban lahayd waa artay markay mikrofoonka qabsadaan hadba waad iska fogeyn lahayd laakiin sharciga way igu qasbaya inaan aqbalo markaa ragga kalena waxaan leeyahay 10 sano way taagan yihin xisbiyaduna waa weelka siyaasadda ee qaranku uu ku taagan yahay aqalkani haddaanu tiirar lahayn ma dhismaayo madaxweyne ma soo baxaya haddaynaan xisbiya soo saarin haddaynaan xisbiya adag oo aynaan xisbiyada korin oo aanay xisbiyadu wax badan baranna dowladda iyo dadka ay soo saaraanna ma fiicnaanayaan markaa hortaa la fahma xisbiyadu waa halkaynu taladii kusoo ururinay markaa dalku waa inay xisbiyadu 10 marba mar soo baxaan aminta 10 sano maxaa loo leeyahay 10 sano waxaa loo leeyahay haddaynaan awooddeeda karayn in sida dadka xoogga leh ee dhaqaalaha haysta nin walba carab aynaan ururin karin duruufo badan awgood oo waay aragnimo hore naga soo martay oo xisbiyadu markaaba u baydhaan si qabanaya waxaynu u baahannahay inaan 10 sanaba mar dhig cusub gelino 10 sano ee hore ka bilaabmaya markii Siraayi joogay 12 tijaabo wanaagsan baa anu kule barigaaba raggii ka baqanay baan lahayn war baxaa bahala ka soo bixi doona aad uga baqay waa la soo daayay xisbiya cusub baa soo baxay xisbigii ugu adkaa Somaliland ee maxamed xaajiraan cigaal aasaasay ayaa halkaa ka baxay waxaa soo galay xisbiga wadani waa talaabo hore waa isbedel ma inaan ooyin waan soo dhaweynaa wadanina maantana xisbiga kulmiye anigu miiskaan allaayo inuu xisbigayga soo bixiyeen kale bisinkaan u hayaa waana rafanaya aniga kuna cusub isku baan xisbiyada mucaaradkiina sharciga maanta waxaanu nahay saacaddaanu joogno xisbiya ku meel gaadha bisha 28 waxaana laga rabaa qolada ururada imika waxaa laga rabaa inay keenaan intaasoo qof lacagtaa bixiyaan tallaabada qaadaan saddexdan xisbi waxaa laga rabaa bishaan ku jira 28 inay keenaan sharciyadoodii oo dhan dhismahoodii guddigii fulinta golihii dhexe xeerkay ku kala baxaan hadday wax dhacaan ay isu bedelayaan political programka dalku qaxsanayaan intaasay guddiga diiwaangelinta laga rabtaa xisbigii keeni waayaa halkaasuu ku haraya sidii xisbigii udub waana sharci ereyga la yidhaha ha la isku sidko waxaan leeyahay ha la micinayo ha la isku sidka maxaa looga jeedaa ninka isku sidka gadoonaya ha micinayo waxa taagan marka hore
oo garoonka imika ku jira oo lagu hayaa tartanka u adigoo leeyahay meesha ka baxo oo la riixaya dee waa saddex xisbiya jiray waa kubiyo wadaniyo cidbaa leeyahay waa la haystaa iska hay celiya dee garoonka kale ciyaarta cid kale kusoo gaari kara mayso madaxweynaha leeyahay xisbiyaha la isa saaro ma 15 urur iyo 3 masteeto waxaynu doonayna qoladii baarlamaanka waxa gaarka saar laabsaara waana inuu gobolka xeelka dejiya ma waxaan oran doonaa masteeto yaa bal noo fasira sasaar tisoo wuxuu leeyahay 3 xisbi soo baxaya garoonka imika waxa ku jira oo sharci ah inay 3 xisbi ee hore iyo 15 inta soo dhaafto talaabada labaad inay tartamaan saddexdii ay u qorna ay soo baxaan oo caafimaad qaba in la yiraahdo madaxweynuhu aad muxuu u oranayaa markay urur soo baxaan anu sharciga ku hadlo afayga ma anu musabbixi ma laha anu madaxweynaha oo sharci fulinaya sharciga ninna uu yahay maayo anna isoo yahay maayo oo akhirada jeeni maayo iskala leeyahay waa lagu qabto sharciga jeedo nin kale ugu yahay maayo taasi waa qol waxa kaloo baa haddaan raay xisbiyada saddex xisbiya hore jiray waan u duceeyay waan si duceeyay marka hore nimanka ayarga cusub oo soo baxay ilaahay yaani deena jeedo oo balan ka dabaala haddii aan la wado har ma yaraysto horta ilaahay waxa uu ka jeedaa dabaaldooda aan jeedo ka badbaado oo ka soo baxo kaas waa laga duco waxa ku daraya ilaahay waxa ka jeedaa xisbiyada hore kuwan dambe wada dambaadooda ma araga inaan noqon aanaan oo dadka markaanu galayno aanaan sidii balaayo u tubin ilaahay waxa ka jeedaa xisbiyadii hore ilaahay loo gaarsiiyo dadka markaanu alaaminayno inaanaan oo balaayo iyo xabad iyo rasaas suuliga ee aan codka nasiya oo nabad ku qoleeya oo dadka horumariya inuu ilaahay taa waafajiyo ilaa waxa lagu ducaysanaa aanoo taada qolada iyada saxiix xisbi hore ilaa naan ka didin qaar imika soo bilaabay hawl oo aanaa baqanada aan loo bartano si caafimaad qabo u kala badinana ilaahayna tahay waqtiyo qolada hore noo duceeyay saxiix xisbi ducada ka bacdi qolada suuqa waxa leeyahay waa gooto oo dadka ku soo carreeyo waa barduqula waa loo lahay tartanka noqdo inta waxa leeyahay maanta taa joogtay xisbiga u daldaday mid kale ilaa qarankeedu bariyahan oo dhan waxaynu ku xiirsanay oo lagu haystay dalka hal la wada yeesho taladiisa hal la wada yeesho dalka hal loo sinaado saaw iyo sanaag bari iyo awlo iyo sanadba way ka midaysan yihiin intaa waa dhab cad qayliga soo qarimayne haddaanay soo bixin xisbiya gobolada bariga iyo galbeedkii hawshaasi way inoo joogaysaa mar walba laba waajib baynu ku leenahay si dalka loo qaybsado siyaasadda hogaaminta xisbiya loogu yeesho qolada farta lagu golayo beesha dhaxal ay dhahdo waxaa ku waajiba inay ogolaadaan oo weliba soo dhaweeyaan inay soo baxaan xisbiyo bari iyo galbeeda ila dalka waa la wada leeyahay ma waxaa laga gagabanayaa in la arkay markii u horeysay xisbiga bariga galbeed inay soo baxayaan oo soo tartamayaan inaynu soo dhaweyno oo la arko oo wax la qaybso dalka wada wadanahay miyaanay ahayn maxay u ekaanaysaa haddii la ilaa maanta xisbiyadu mari maayaan u ekaan maysa wax la labada bariga galbeed unbaa loo jeeday la diidayo taana aqbali mayno dastuurkuna ma ogola qaarnimadooda kuma jirto dhammaantiin taasaynu taageernaa inay xisbiya bari ama galbeed soo baxaan oo dalka la wada yeesho oo saamaqaynta maana soo qaado waxaan kusoo gabagabeynaya mar labaad hambaliyo dhalinyarada qalinjabinaysa qolada iyadaa hore ee xisbiyaasha iyadaa horea noo soo duceeya inaanu barana afka wanaagsan ee dalka lagu bariyo mudaaharaad dambe iyo balaaya dambena intii hore ay nagaga ekaato khasaaro intii hore ay noogu filan haddii aan la yidhaha anaga saddexdii xisbi waxaa naga ogtihiin af wanaagsan codna siiya nimayr baa nagu soo kacay nooga hiriya laakiin mudaaharaad iyo xabadii sumiga iyo siini iyo dhidhii saddexdaa xisbidkaayana waxaa leeyahay ayaanu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu